dowladda Ruushka oo ururka Taliban ee ka dagaalama waddanka Afghanistan ku maalgelisa sidii ay u dili lahaayeen askarta Mareykanka ee ku sugan waddanka Afghanistan sida uu daabacay wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo The New York Times ee ka soo baxa waddanka Mareykanka. Ruushka ayaa malaayiin dollar siiya ururka Taliban sidii ay u leyn lahaayeen si ay u dilaan askarta Mareykanka ee joogta waddanka Afghanistan. maqaalkan oo ahaa mid dheer oo ay daabacday The New York Times ayaa lagu sheegay inay shirqoolaan saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidamada Mareykanka ee joogta waddanka Afghanistan. maqaalka waxaa lagu sheegay in CIA-da Mareykanku ay ogaatay arrintaasi haddana ay odorasayso sidii ay uga falcelin lahayd arrintaasi. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyay xogtan isagoo sheegay in The New York Times ay daaha ka qaado cidda ay ka soo xigatay. Trump ayaa sidoo kale sheegay inaanay jirin wax weeraro ah oo ay la kulmeen ciidamada Mareykanka ee jooga waddanka Afghanistan waqtiyadii ugu dambeeyay. maamulkiisuna uu yahay midka kaliya ee sida adag ula macaamila nidaamka Ruushka. safaaradda waddanka Ruushka ee Washington ayaa codsatay in The New York Times aysan baahin xogaha beenta ah. Mareykanka ayaa Afghanistan ku duulay 2001 si uu meesha uga saaro taliska ururka Taliban.